magacaygu yahay Cabdi Cumar Shadiid saaka waxaan doonayaa inaan ka hadlo wadada la dhagax dhigay ee isku xidhi doonta Saylac iyo Djibouti kama hadlayo inay tahay wadadaas wado carqalad ku ah gobolka laakiin waxaan sheegaynaa siyaasadda ka dambaysa wadadaas inay tahay mid qarsoon oo aan cadeyn Saylac waa degmo ka tirsan gobolka Salal diisi guud loo eegano gobolka Awdal haddii wadada la dhigayo waxay ahayd in mudnaanta la siiyo in lagu soo xidho Saylac Somaliland laakiin wadada Saylac iyo Djibouti isku xidhaysaa ma aha tuu adeegaysa Somaliland laakiin waxaan arkayaa inay tahay tuu adeegaysa reer Djibouti kulley ajanda siyaasiya ayaa jiro ay xukuumaddu ka leedahay dhagax dhiga isku xidhaya Djibouti iyo Saylac waxaa lagu yeelay darada inuu tagay wasiirka madaxtooyada iyo ay hogaaminayaan oo ay dhagax dhigaan iyadoo xitaa dadka deegaanka aan la siin doorkii ay ku lahaayeen sidoo warkaan wadada Saylac iyo isku xidhaysa Djibouti kadibna markii uu dhagax dhigay wasiirka madaxtooyadu wadada wuxuu u boqolay halka ay aadayeen Djibouti kale waxay la tahay Saylac murankeedu in badan ku soo taagnaa Djiboutina faragelin toos ah oo Somaliland hor socoto ay kula Saylac wadadana waa dariiqadii hore Saylac faragelinteedu lagu soo noqonayay mid kamid ah haddaba waxaan rabaa inaan haddaan nahay anagu dadkii deegaanka iyo degmadaba afkeeda sheegan karayay oo maadaama ay ku taalo gobolkii Awdal inaan muujino dareenka shacbiga ah ee ummaddu ka qabto sidoo u aragto arrintaas Saylac ee ah tulo kolba la xaqayo oo moodo in la rabo in ma garanaysa la sameeyo faragelin qaawan oo lagu sameeyo degmada Saylac waxaan sheegayaa xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland madaxweyne Silaanyo inay arrintaasi tahay arrin shacab ama reer Saylac ahaadaan ama reer ma ahaadaan ay ka qabaan dareen waayo waa ajanda siyaasi oo qarsoon oo aan la ogeyn ujeedada ka dambaysa haddii wadada la dhagax dhigo laamiga oo isku xidha Saylac iyo Djibouti waa horumar baan oran karaa oo waa jidkii oo fududaaday waa isku xidh imanaya si wanaagsan oo farxaan lahayd marka dhinac kale laga eego waxa ka haboonay inta Saylac wada laga bixinayo la gelinayo Djibouti in Saylac lagu soo xidho galbeedka oo boorma inta wada laga saaro Saylac la geliyo taas aniga la qurux badnay si ay Saylac ugu xidhanto Somaliland inteeda kale laakiin Saylac haddii ku xidhanto Djibouti yani waxay la tahay xuduudihii dalkan oo ay u muuqanayso inay noqonayaan kuwa sii baaba'aya oo ay Somaliland kala garanayaan inay Saylac Djibouti ka tirsan tahay in Somaliland ka tirsan waxaan ku baaqayaa haddaba dadka deegaanka ka soo jeeda haday tahay cuqaasha waxgaradka siyaasiga cilmaadiinka qurba-joogga inay ka hadlaan oo ay dad baraarugsan oo la socdo wacyiga iyo wacyiga dhulkooda jira ay noqdaan haddii kale waxay noqonaysaa inay arrintaasi noqoto arrin murugsan oo maalinba maalin ka dambaysa sii xumaanaysa annagu haddaan dhalinyartiinahay ummadda qaadan karayno maalin walba Saylac waqtigeeda ka barooranaysa oo ay cid kale soo faragelinayso oo xitaa lagu marmayo jiritaankeeda iyo la heshiiyeeda oo nasiib darro oo xanaadi aad uga xumaay haddaan dhalinyartanahay arrinta mabda cad oo waxaan ka qaadan doonaa cid kasta oo arrintaas ku mashquulsan ay ku qanci doonto ma doonayo inaan hadalka dheereeyo waan soo koobayaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne shacabku adiga ku doorteen madaxweyne dimuqraadi ah tahay cod baad ku timiday si legitimate oo sharci ah ayaad kursiga ku fadhidaa shacabkii ku doortay maalintii codka lagu guridayay deegaamooyin codkaasi inuu ahaa cid diiqa oo adiga lagu soo diray laakiin shacabku waxay kaaga fadhiyaan wixii iyagana rabitaankooda ee ay iyagu rabaan inaad wax ka qabato ama meeshii la rabo in loo xoqo shacabka inaad xoqdo waayo waxaad mas'uul ka tahay qaranka dhamaantii min loo yacdo ilaa yaciraayo oo ah British Protectorate ama xuduudka Somaliland halka ku eegayay mas'uul ka tahay cid kasta oo inta dhex joogta hadday tabasho gudbisanayso inaad tabashadooda dhageysato waa kugu waajib marka arrinta shacabka reer Saylac in badanba waa arrin soo noqonaysa arrintaasi dareen cad ka qaado Saylac loogama taliyo Djibouti loogama taliyo Diridhaba loogama taliyo meel kale Saylac waxa looga taliyaa halka dalka looga taliyo waana kursiga afadilaad marka haddii aad danaynayso muwaadiniinimada iyo muhiimadda ay leedahay ama qiyamka ay leedahay citizenship
qofka saylac ku dhashay bihi ku dhashay awgi ku dhashay ayaa leh masiirka lahaanshiyaha saylac isaga leh rabitaanka saylac isaga ugu horeeya oo jecel horumarka saylac marka madaxweyne waxaan leenahay in laaluusha ama kharashaad yar laga qaato dawladaha jaarka ama hayb aanan meesha ma garanaysaa oran mayno ma degana oo wada degan yahay saylac laakiin haddana ajandaha siyaasiga in cid gaar ah u adeega ma waa in dadka uu wadaagay kulli waxaan leeyahay waan ogahay inaad tahay madaxweyne karti iyo aqoon leh inaad in badan u dheglushahay baahiyaha shacabka waxaan rajaynaynaa inaad arrintaas degdeg wax uga qabato haddii xukuumaddaadu ka gaabsato waxaan kuu sheegayaa in duufaano dhinaca shacbiga saylac ay dhawaan kugu soo wajahnaan doonaan waa haddii aad ka gaabiso ood ka dhaga fadhiisato baahiyahaas ay qabaan dadka reer saylac intaasaan